deegaano ka tirsan gobolka Sool ayaa wali waxa ka jirta xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada Puntland iyo Somaliland marka laga yimaado dagaalkii shalay qasaaraha sababay ee labada ciidan ku dhaxmaray halkaasi saaka ilaa duhuradii oo aan ku sugnaa furinta waxa ii muuqatay saansaan dagaal iyo dhaqdhaqaaqyo ay labada ciidanba sameynayeen iyadoo mararka qaar la isku turtuurayay hoob culculus balse ma jirin dagaal toos ah oo dhaxmaray ciidamadaasi gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo haatan kamid ah saraakiisha ciidamada Puntland ee ku sugan aaga dagaalka ayaa saxaafadda u sheegay in ay guulo dhankooda ka gaareen dagaalkii shalay ee salaasada isla markaana ay gubeen sida uu hadalka u dhigay taliskii guud ee ciidamada Somaliland waxa uu sheegay Colonel Cumar Faraweyne in saraakiil sare ay dileen ciidamada Puntland ciidamada geesiyaasha magabadayaasha dowladda Puntland oo shalay dagaal galay aad iyo aad baan u salaamayaa salaan guud waxaan kale u sheegayaa shacabka reer Puntland waxa la yiri wararka been abuurka oo saxaafadu la wareegayso Somaliland waxaan cid sibina iyo dhulbaan saxaafin waxa ka jiray anu hadda meesha ay kala hadda u jeedaano waa to karaq labarkeedii weey dagaal baa ka dhacay khasaara waa laba dhinac waa jira laakiin Soomaaliya waxa taada harubka tabi waxaanu ka haynaa gaari dagaal waa aragtay maamay beebayaal leh suuyele teedhisaban leh anagu intaan arkay waxa jiida dhexe taalaay 19 gaari weey waxaanu haynaa banduulihii ciidanka waxaana kaloo ku dhimatay 9 sargaal oo ay ka tacsiyeynayeen xalay idaacadeeda Facebookyada iyo baa ku dhimatay waxaanu gubnay taliskooda daadiga ardaadaqaha kana ka baxsan insha Allah ta'ala saacadaha soo socdaan hadii Allah idmo dadka la soo qalday oo lagu soo qalday go'aanoogaadka beenbeenta waxa ayaan waa ka dhigi doona hadii Allah idmo wax dhibaato ma jiraan meela kiisha adlayseen oo sagaalka ah ma taliska aad gubteen bay ku dhinteen dagaalkan waa ku dhinteen taliska hurteen taliyihii ciidanka watana waa qaban oo isbaa garow yaala waa ishina macalina waa soo arkata maxaabiisa waanu haynaa insha Allah ta'ala wixii faahfaahin dib baanu ka sheegi doonaa dagaalkuna ciyaartu waa bilow weey